بسم الله الرحمن الرحيم وسلامتي دمان شعبك الصوماليين مeel kasta aad joogtaan waxaan leeyahay habeenku haydin wacnaado imri dheer iyo caafimaad baan idin rajaynayaa Soomaali weyn ku soo dhawaada barnaamijkeena midnimo qaran iyo anigu Cabdi Fataax bariya kala maqlayno waan idin basaasay bulshayahay manabadba barinay ma bariday soo dhawaada shacabkayga caashiqa meel kasta aad joogtaan waxaan u maleynayaa inaad si wanaagsan ii maqlaysaan aad iyo aad soo dhawow waxa uu samsam aad baan ku salaamayaa soo dhawow dhamaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan guuriga gobonimo aad leeyahay waa barnaamijkeena midnimo qaran iyo caawa waa run ayaamaha waan idinka yar mashquulay wuxuu yiri ninkii jiray madama adduunyadu dar allay u dhimantahay miyahay madama adduunyadu dar allay qabyow tahay aad baan ku salaamayaa xasan mooga xuseen soo dhawaada shacabka caashiqa meel kasta joogtaan barnaamijkeena caawa iyo midnimo qaran faafiyo oo inoo sheer garay gaarsiya dhamaan shacabka Soomaaliyeed aad iyo aad baan idin salaamayaa hawlaha adduunyo waska wuxuu yiri heesta maxay samatar hawlaha adduunyadu waa kuwa is haysto aan kala harayno hambiyo farx nimba waa halkiisii habeen dhaladkii iyo kii nasiibku haray wasaareer socdaano kala harina maayaan aniguna haweeyay naftaydii habeenadan halis bay ku sugantay hawlaha adduunyadu hambiyo farx nimba waa halkiisii soo dhawaada shacabkii caashiqa meel kasta joogtaan dalku sidoo ahaan jiray iyo maanta sidoo yahay muuqaalka aragyaha maqalkaba u kala rod dhamaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogtaan waan ku salaamay gudoomiyaha ururka midnimo qaran Jamiilo Jaamac Aadan Jibriil soo dhawow walaashay soo dhawow guuliyo gobonimo dhamaan shacabka Soomaaliyeed بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين دمان شعبك الصومالي ميركسو جوجتان وسلامتين waxaan doonayaa caawa inaan wax yar taabto oo aan insha Allah biidnillaahi kariim tala walaalimana halkan aan u mariyo kana hadlo guulaha iyo sharafta iyo karaamada iyo hanaanka iyo sinaanta maanta shacabka Soomaaliyeed iyo barta inuu higsanayno iyo waagii 19 barigii dad qalatadu ina heshay meeshii aynu ka soo noqonay war Soomaali way cuntay oo isbahdishay oo isbacsatay oo reer buu la dagaalamay oo dariska la isku diray oo meel walba janan dhiigi cabo qorisi tabagalay magaalo kastana askari baa weeraray dadkii Soomaaliyeed ee walaalahana cuqdad iyo cunfi iyo xumaan iyo liidnimo iyo saqajaanimo iyo diin la'aan iyo kufri iyo dhaqan xumaan la baray intaas oo dhibaato ah ayay ummadda Soomaaliyeed dhaxashay waxay dhaxleen ceeb waxay dhaxleen fawaaxish waxay dhaxleen bahdil waxay dhaxleen ummadda Soomaaliyeed masiibo kasta wuxuu yiri dhibtayaal adduunyada inta badan dhadhamin oo dhaaya saarna yaabkee damiirkii maxaa dhibay maxaa dhoohay aadmiga dhaqankii maxaa helay ilaah baan ku dhaartay dadku dhalan awow iyo abtir weeyo dhalasho waa qoys dhamaantii dhab habreed wadaagay maxaa la iska dhibay haddii aan la dhiidin waxa aan dhul sugaynay kali haato noo dhiman dhulka oo la qaatiyo dhalaanko la iibsho iyo haweenko la dhiibo la dhibaato weeya dhagta maqalka ceebtii laga dhowrsan jiro oo lagu dhaashto weeya kollay haatan dhiman oo dharka waska xidhanay ma dhinaa colaadaha ma dhisnaa wixii dumay daawac bayna gaadhay dhaymo ma isku dayna war waa intoo la dhaafo la dhaqaa dunuubtee ma isdhiibnaa caawo rabbi ma u dhawaanaa ahdi meel ma dhigana si kasta waynu u baaba'nay si kasta waynu guriga way qaxnay waxaanu gaarnay Soomaaliyeed heer qof Soomaaliyeed la yiraahdo waa qaxooti isagoo dalkiisa jooga billaahi calaykum ilaahi baan idinku dhaariyay qof Soomaaliyeed gurigiisa jooga oo dhulkiisa jooga deegaankiisa jooga oo leeyahay waa qaxooti barakaca yaa soo barakiciyay xagee laga barakiciyay shabeelaha hoose laga barakiciyay xamar buu ku qaxay xamar baa laga soo qaxiyay Kismaayo ku qaxay Kismaayo laga soo qaxiyo Boosaaso ku soo qaxay Boosaaso ka qaxay Garowe u qaxay garow ka qaxay burco qaxay war miyaanay jugjug meeshaadii joog ahayn ilaa ay hadda qofkaasi miyaanu xayndaabkiisa iyo gurigiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa ku dhex jirin eegay Soomaali qof Soomaaliya oo Soomaali dhalay oo la leeyahay Boosaaso qaxooti ku yihiin qof Soomaali dhalay oo la leeyahay Hargeysa qaxooti ku yihiin qof Soomaali dhalay oo la leeyahay Muqdisho qaxooti baad ku tahay ajnabi baad ku tahay oo marti baad ku tahay war miyaana wax walba dhaxlin ceebta adduunyada dhan meenan kumban meenan muquurin
ميانا كو قبيسان عيب إيو فواحش إيو دقن حمو ميانا كو قبيسان ومضى الصوماليات دادك يا كلا دلي يا اسكو دري ومضن يا عيبتنا كشقي كعنتنا يا نقو قورعي من ديدا نيكا دابك هيا وصومالي ilma xayawaano aqligeeni iyo garashadeeni iyo damiirkeeni ba wuxuu noqday reernimo maanta physical buu noqday reerku physical laakiin waxaan ilaahay ugu mahadinayaa maanta inay dhamaatay wax kasta oo la marsan jiray haday kaar qabiil tahay haday kaar danaysta tahay haday kaar kooxeed tahay hogaamiyad kooxeed hogaamiyad diineed burcad diimeed midka kaar kasta waa la soo isticmaalo maanta wax haray haba yaraatay ma jirto umada Soomaaliyeed doorbiin bay qaadatay oo kiyaala 40 digriye bay gashtay dadku 9 digriye 20 digriye baa la gashtay 40 digriye bay gashtay ilaa 10 jirka maanta oo kiyaala weyn baa ugu jiro tuugada ka arko eegay inta xanuunsan ee bukaan socodkaana waynu u ducaynaynaa caawa waan u ducaynaynaa hadii hadaayo qoran tahay in rabbi ha soo haday ilaahay baan ugu baryaynaa in walaalaha Soomaaliyeed ee bukaan socodka ay soo hadoosmaan haddaan hadaaya u qornayn eegay rabbi hana dhaafiyo waanu daalay shacabkana way daaleen umadana way daashay waa la dhibtooday rafaad oo dhan baa dhacay waanu quusanay ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay war markaad yaabtaan ii soo noqda Soomaalidu way yaaban tahay wayna noqon laaday ilaahay baan idinku dhaafsay raxmadda ilaahay wax ka qiimo badan miyaad garanaysaan wuxuu yiri dhowr ilaah miyaa jira ma wax rabbi loo dhigo lagu dhaartabaad garan dhowr ilaah miyaa jira ma wax rabbi loo dhigo lagu dhaartabaad garan Soomaalidu laba diin bay leedahay laba diin ayay Soomaalidu leedahay waliba mid baa ku weyn diini waa diinta islaamka ee furqaanka iyo kitaabkeena jaamaca ee furqaanka awey nabigiisuna waa maxamed calayhi salaatu wasalaam diin kalena way leedahay Soomaalidu oo waliba ka adag diinteena islaamka ka adag Soomaalida uga adag waa diinta la yiraahdo qabyaaladda diinka adag Soomaalidu ma laha diintana dhaqan ahaan bay u haystaan qof kula tukanaya oo kula soomaya oo kula salaadaya oo masaajidka afkoora kugula jira oo marka aad baxdid ku dilay reernimo ku dilay Soomaali baa laga helaa qof diin islaam sheeganayo qof islaam dhiigiisa galay Soomaali baa laga helaa qof islaamnimo sheeganayo oo soo xajaya oo ummad Soomaaliyeed xaqoodii iyo dhaqankoodii iyo maalkoodii dhacayo Soomaali baa laga helaa ilaahay baan idinku dhaarsay hogaamiye kooxeedada dhamaantood wada xaaji baa liyaa mid aan soo xajiina ma jiro mid laga aqbalaana ma jiro saawa see laga aqbalaya nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri ninbo arkay gacmaha kor u taagay asxaabtu sheegay wuxuu yiri ninka ma aragtaa ducadiisu samada koobaad dhaaf mayso maxaa dhacay baa liyaa rasuulullah waxa la yiri nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam wuxuu xiran yahay waa xaraan oo wuxuu cunayaa waa xaraan oo wuxuu soo cabay waa xaraan oo dharkan uu sita waa xaraan oo weesada ku soo weesata waa xaraan xagee loo aqbalaya salaad war Abdi Faaruq wuxuu tagay xajka yaa ka aqbalaya xajka yaa ka aqbalaya Muuse Suudiye laxow xaaji baa la yiraahdaa war kuwii dhiigeena cunay ee shacabkeena cunay ee habeen iyo maalmada Soomaaliyeed isku dirayad xaaji u taqaan war inta qoomkani u talinayaan Abdi Faaruq Muuse Suudiye laxow Abdi Qaybdiid Faroole iyo kuwa la midka iyo Muuse Biixi oo maadar ummad Soomaaliyeed laayay oo mid iyo laba iyo saddex ahayn intaad geesi ka u taqaanid intaad u taqaanid ka inuu sharaf leeyahay intaad u taqaanid kaas inuu wali soo daahirayay wallahi ummadda Soomaaliyeed dayaca ka bixi mayso masiibadaana waligeed way ku jiraysaa maantaysa inuu ugu dhowdahay Soomaaliyeed maanta inuu ugu dhowdahay oo garasho iyo aqli iyo in lagu tusaale qaato intaba waynu soo gaar dhibaato kasta oo adduunka lagu tusaale qaatana way inagu dhacday Soomaaliyeed hadday maanta cid inaga aqoon badan ma jirto warda lagu tijaabiyo dawlad la'aan dalka Soomaaliya laga haya eegi war haday meeye xagee ku toobad keeneen qaar baa koranaya way toobad keeneen xagee ku toobad keeneen wali miyaad aragtay iyagoo ummadda Soomaaliyeed ay xoog ku haystaan ee kala goosteen war iyagoo le war xaq wakan war sukaale walaalaatiin war dad waxa weeye wada dhashabaatiin war qoys iyo qaraabatiin war ilaahay baan idinku dhaarshay wali miyaad aragteen Muuse Biixi iyo Abdi Faaruq iyo Axmed Madoobe iyagoo le dadkani waa dad walaalaa ehel baatiin sukaale miyaad aragteen khawaarsimiyatii ku dhacday mid ka xun baa inagu dhacayso xabashi inagu dhigaysa xabashi uraysa oo canjeera daafida cunta oo habeen iyo maalin aan irsi kala haysan canjeera daafi wallahi ku qadeeyaan oo ku quraacdaan oo ku cashayaan qiyaamaha leeso qalada waa indhahaygaana saarayno
habeen iyo maalin canjeelo daafi bay cunaan iyo bun liyada bunaaweetad oo dalkooda ka baxa cabdifaaruq markuu tago Itoobiya Soomaaliya inoo sheergarayo gaarsiiya ilma xayawaan iyo kuwa daalimiinta Maxamed Saalax Cabdalle Camay waa ku salaamay saaxiib bataankayga wuxuu yiri Soomaaliya waxaan tagnay Itoobiya aan tagnay waxaan ka soo wada hadlay arrimaha ganacsiga kulaha ganacsiga iyo isdhexgalka bulshada war ilaahay baabana kala guray rabbi baabana kala guray anaga iyo xabashiye maxay tahay anaga isdhexgalkaan isdhexgalin ilaahay baabana kala guray laba dal buu na kala siiyay laba luuqadood buu na kala siiyay ganacsigana dhex marayaana muxuu yiri qaad bay noo keenaan darooga noo keenaan darooga wax aan ahayn Itoobiya nagama soo gasho boosaaso iyo garowe iyo gaalkacyo iyo ilaa tuulooyinka daroogada tagta qaad baa la geeyaa lacag bay naga qaataan wax ay nagu bedelaan ma jirtee maxay tahay ganacsiga naga dhaxeeya anaga iyo xabashi war walaalnimada naga dhaxaysa maxay tahay wanaagna dhex maraya muxuu yahay xagee baan iska soo galnaa anaga iyo xabashi qaadkay keenaan qaadka hareeriga bay boosaaso ilaa qadara iyo xaafuun geeyaan Cabdiwaligaas Cabdifaaruq waxa la yiri warniyowga qaadka nin dhalinyaro ah warsanaya arinta qaadka maxaad ka dabacday hadda adeer anigu qaadkana ma cuno hadda haye wax iga galayna ma jiraan kaas la leeyahay mas'uuliyad ba saaran oo madaxweyne oo dadka qaarkood niic ila soo doontaan oo dhahan Cabdiwali iska daa maxaan daayaa waa daaline qaadka ma cuno buuyi anigana wax iga galay ma jiro oo hadda adigu qaadka cunin qoysaska garowe joogay kuwa boosaaso joogay ma qadaama dirgaanka ah ee lacagtoodii xabashidu qaadanayso miyaanay xaq iyo mas'uul miyaad ka hay miyaad hogaamiye u hay miyaad gudoomiye u soo dooran miyaad inta muqdisho ka timi Mareykan ka timi Soomaaliya waxa weeye timi oo ra'iisul wasaare noqotay aad Puntland imano reer ku soo noqon ilaa Puntland waa reere adigoo ra'iisul wasaare Soomaaliyeed miyaad Puntland iyo reer ku soo noqon maxaadna tartay wuxuu yiri labadii tukow shalay naga tago maxaad soo tarteen huutiya haatow maxaad soo tarteen bal maxaadna tartay Cabdifaaruqow Puntland maxaad tartay aan musuq maasuq qabyaalad reero la isku diro ba iyo hoog geeri iyo naxdin iyo faqri iyo gaajiyo sixir bar waxaan ahayn ma Puntland tartay sharaf miyaad noo soo hoyay ma karaamaadna tartay dadka inaad nagu dirtid oo ummadda Soomaaliyeed nagu dirtid oo la yiraahdo Puntland waa itixaan Puntland war shacabku waa shacab fiican war shacabka Soomaaliyeed waa masaakiin shacabka Soomaaliyeed waa dibane kuwa Hargeysa jooga xoog lagu haysta oo kuwa garowe jooga xoog lagu haysta oo niman daalimiin oo xabasho u raran baan haysta haddaanu iska kicin weynana cid naga kicinaysa ma jirto weynaanu gacan wax kaga qabanaa waxa la yiri munkarka afka kadib oo niyada kadib oo gacanta kadib oo haddaad gacan wax kaga qabato gacan wax kaga qabo meeshii ugu dambeysay maraysa shacabka Soomaaliyeed inay niyada ka nacaan garowe maanta lama banaan bixi karo oo Hargeysa lama banaan bixi karo xabad baa la dhacaya xabashi baana daba fadhida eegi Soomaaliyeed war dadka Soomaaliyeed walaalaha war qaxooti bad shacabka Soomaaliyeed waa qaxooti 30 sano qaxootiyiin wuxuu yiri abwaankii heestii Seenabciga qaadisi dibka laguma waaro dhaxal looma yeeshay waa laga dhamaada war maxaa anaga nagu khasbay inaanu 30 sano inaanu ku dhalano qaarkay ay ku dhashaan burbur qaarna dawladba aanay arag oo markay sida u dhasheen indhaha saa u kala qaadeen oo uurka hooyadba soo dhaafeen ay dawladii dhacdo ilaa maanta aan qaxootinaha maxaa nagu khasbay ma aayad baa nagu soo degtay ma xadiis baa nagu soo degay ma arar rabbi baa nagu dhacday maxaanu bilaa dawlad u nahay maxaanu sharaf aniga xabashi suu iga sharaf badta Itoobiyaan uraya suu iga sharaf badta suu wadan kasta safaarad ugu yeeshaa see aniga dumarkayga u dayacan yihiin see raggayga iyo dhalinyarada iyo Soomaaliyeed iyo halyeeyada Soomaaliyeed u dayacan yihiin si matimir xabaal taal baa naano eegi matimir xabaal taal baa shacabka Soomaaliyeed sharaftii meeday habeen dhawaad waxaan ku soo qoray page-kayga sharaf ka horeysay siyaad barre ma jirin mid ka dambeysana ma jirin dawladii militariga ahayd qaar badan baa niic soo qoray iyo xanuun dad xanuunsan oo bukaan socda wallahi sharaf kama horeyn militarigi oo siyaad barre aabasiyaad ilaahay ha u naxariisto jannatu firdaws al-aala uu ku jira insha Allah dambiga uu lahaa iyo wuxuu u geystay oo dhan ba idinka ka meeray daayeer buu meel ku hayay daayeer dad uraya oo xaasid ah oo daalimiina oo dhiiga shacabka u baahan ayuu xabsi ku hayn jiray kuwii waa maanta shacabka Soomaaliyeed haysta wuxuu yiri siyaad barre Allah u naxariistay dal baan ka tagayaa laakiin dad ka tagi maayo wiil run bay noqotay wax allaali wixii jabhadii cararayay iimaan la'aan iyo cunsurinimo bay u ordayeen wuxba
US حمر بيجا شيء دكم داكم بكدك ضد نول يوح موت ينول بس هسه ولا غير أنا موغوي بيجا شيء SSDF بري بيسوق شيء محل فائدي وحن جيري يحمان ينعيب أهين أول فائدة ما تقرنيسها ورمانتي يا دولة دي ما ده هرتاجن ورشرفت يا مان تهرتاجن وركرامة إن يا هرتاجن يا دينت إنه هرتاجن دينت إني معاند يا هرتاجن والله تب هذه بهرتاجن SNM يا USC يا SSDF هذا هاي ستانين دينتين والله وينوليهن أو بالله وينوليهن أو تالله وينوليهن أو هرجوا من سوالي وجرا فيصل أبروني خير الله قصيو نكا أضيع فيصل أبروني كترسن أوركم من مقرن أو ولي ما لحظة وصار يساع يا آذان شامع كاهن لبض أني أقويهم كا لبض هو ويكهلا ولي فيصل أبروني وحب حي هرجوا ميسي والله هرجوا ميسي ولي وجرا أو SSDF حب أنت عررين بحبشوا قلنا وSNM يا SSDF يا US وحب حبشوا قلنا هم بالصوص يدلكين صوت دمية بالي وأنا دميين وأنا بابيين وأنا قحيين وواحد شراء أفرتن كن أو لنيرة أو قحوتين ما كل شيء إلهينا على دي سوكوسو دكتبان كوري وحي أمد الصوماليات لقوية الله كتليا هبلا الصوماليات يدنيرة الصوماليات وأنا في صوماليا أقون كنتي بنو عرون شري مكان أكو قف صوماليا أنا في صوماليا كرين دب مركادور رعدنا حرض الداب بكلش أما حرض اليمن بكلش أما حرق يكوت على تنزاني يكلش أما حرق يوغندا كوتالو كلش أما حرق إثيوبيا كوتالو كلش يا هلكا جارسي هلكا يا جارسي نمد الصومالي هو ينكي الصوماليات كامم قحوتي وكدلان حلي جانا ما أنت تشوفنو شرملكا يا فرنسيسكا يا طليانيكا يا سويدن قبل الصوماليات أو أورله أو حوالي كدلا حرق قحوتي باشله إيجي ولا لا يهويل كأنه وشرع بودن كل يوم سويدن ما فرنسيس أذكر أنه نقولس هاي مش هتختم إسبانيا يطلياني مش هتصوم مرتبات تكون نقولسها هو يؤبد كذا إن لك حي أو إلا ما باصبور كلا يشان يا هل كان نجارسي الما حيوانه حقا نكو أدمينا أو والله وكل مننا أو بالله وكل مننا أنك حق كتاجنو كتش هذا نبان كل مننا هذا هاي من ما قرن يضمان أمد الصوماليين تحلاش هاي الجمهورية ما يشرفتك قوانتي ورياه إيجي بل قبل قحوتية أور كله كان شرم لا كل شيء نيكي تلياني جتشوجو المهدينا باسبور شرم لا لسي يلا اللي يريد تلياني يكون نقوق واحد دربيه دي وتريستيشن وصوصحه كاسميان الدمقي كوا يمن جوجا توكسانيا dadkii Soomaaliyeed ee sharafta iyo karaamada lahaa ee udgoonka badnaa iyo gabdhihii haldaaga ahaa iyo timadheertii quruxda badnay inay tuugsato yaa gaarsiiyay Muuse Biixi Muuse Maadar iyo Cabdi Faaruq baa gaarsiiyay iyo kuwa la midka ah Axmed Moodow Sharaf Sakiin oo dawladnimadooda hor taagan oo sharaftooda hor taagan oo karaamadooda hor taagan dadnimadooda hor taagan xagaad ku aragteen warniyo war weynu dhimanay oo wallaahi waynu dhimanay oo bilaahi waynu dhimanay dharka waska xidhnay oo adduunka ilaahay sanka la inaga qabsadaa oo waa la inaga wasuusaa oo war aniga niyo reer kale muxuu tarayaan ilaahay baan idinku dhaarsan ninka Soomaalilandnimada ku qanacsan iyo ninka Puntlandnimada ku qanacsan ee diiday Soomaali weyn hanyari wuxuu yiri ninkii jiray nin hanyari ma hana qaado ninkii halaba hablaha la hadlee huluun bana ma soo taaga war ninka Soomaalinimo wax ku waayay ma reernimo wax ku helay 27 sano ay qiiqda hayaan oo shacabka Soomaaliyeed afduubeen maxay heleen eegi maxay heleen bal maanta waxay heleen ii sheeg Somaliland baa la dhahaa waa Soomaali baan ka go'no waayahay Puntland ba soo booday maamulka dawladda xarigaan u jirayna waxay ku fiican yihiin Cabdi Faaruq shacabkan ka yeelayni shacabka yani sunbaan shacabka lagu durinay haduu awoodo xudhi la calanka xitaa waa bedelay laakiin waa shacabkan ka aqbalay laakiin shacabka waqooyi waa la afduubay oo waa la majara habaabi waxna isma dhaamaan musuqmaasuqa diimindaabiyada lugooyada dhiiga shacabka hooyada Soomaaliyeed ilmeynaysa cashuurta la guranayo waxa lagu tarkifalayo nacaladii Allaah ku soo degto baan ku ruuxi Soomaali kala gooya wixii umada Soomaaliyeed lugooyo ku aan nacaladii Ilaahay ku soo degto Ilaahay baan u baryaynaa rabbi meel daran iyo meel daadaysa ka toob eegi war gobonnimada iyo sharafta iyo dadnimadu waxay ku jirtaa Soomaali weyn war calanka buluuga baan sharaf ku leenahay war markaynu gacmaha isqabsano baynu sharaf yeelanayna
war markaasaynu xabashiis ka celinayna war markaasaynu kenyatis ka celinayna halkan talo waxaan u marinayaa walaalaha onelef waliba madaxdoodii ugu sareysay baan xalay daawaday clip ay duubeen oo Facebook dhex maray ceeb iyo sharaf xumayna idinku tahay on olefay inaad sida waxyaalaha qaarkood ku hadashaan laakiin anigu waxba idooran maayo laakiin talaan idin siinaya walaalnimo onelef oday weyn oo cira leh oo guddiga ugu sareeya onelef wuxuu yiri magaca ogaadeen iyo bay dalkan ku maqan ninna loo joojin maayo kaasaana lagu doonaya eegi wuxuuna tirinayaa 100 qabiil 33 qabiil oo la degan Soomaali galbeed war hadiirniyo reernimo wax lagu helayo Soomaali waxa kale eliyay waa reernimo Soomaaliland waxa halka geeyay waa reernimo waxa Puntland halka maanta geeyay waa reernimo Jubaland waxa halka geeyay waa reernimo Soomaali waxa isku cuntanaa waa reernimo magaca qabiilka ayaa Soomaali isku diray kaasaana lagu kala tagay kaarkuna kaas oo ahaa adan oday weyn baad oo waliba 70 jira aqligaagu ha shaqeeyo waan kulay aqligaagu ha shaqeeyo on elefay waqtiga ma cunay fuudkiisaan cabaa warniyow isma raacdade mana aqbalayno laakiin talaan sinay wuxuu ninki jiray hilaacyada bari iskuma heshida midun ku hagaag midun ku habdhabo ogaadeen inaad qaadataan wataadaan ogaadeenaya way dhulkana ataadaan xabashi baa naga haysto Ingiriis baa naga bixiyay war ama magaca wada qaata oo ogaadeen iyo sidaa ku wada qaata ama magacii Soomaali galbeed ee Soomaali weyn oo dhan kugu raali tahay gari baa kula degan oo bartira kula degan oo dir baa kula degan oo gari baa kula degan ugudubirsi baa kula degan oo wax ilaahu aad barka beelnay karanaha wiya kula degan oo isaaq baa kula degan oo cid walba Soomaaliya baa degan oo Ciisa degan magacan ogaadeenaya waa qabiil qof waliba xanafta uu ka cararay tusaalana kun jeer baan idin sii meeshan Puntland la yiraahdo Talyaanigii Ingiriisku wuxuu bixiyay Majeerteeniya maamulka Puntland markii la dhisay hadii la dhihi lahaa Majeerteeniya waxa ku soo hari lahaa nimanka Axmed Harti oo Moorcasa Maxamed Harti oo magaciide bahdaba sito Majeerteen magaca la baxay iyo warsangeli ilma habar Majeerteen baa ku soo hari lahaa halka dhulbahante kaski qabe leelkase awrtable gabooye yibro intuu waa ka bixaayeen meesha eegi Puntland baa sidaasana lagu wada joogaa magacan ogaadeenaya xanaf badan buu leeyahay dad badan baa ka haray waradoo heli kara Soomaali galbeed inaad la baxay oo Soomaalinimo wax ku doontid inaad tahay ogaadeenaya wax ku doonaya wallahi bartira kugu dhaweynaan ku raacay أبو سكول باكو قدو وينانو قراعين قري باكو قدو وينانو قراعين قبيلنا قرن من نقضو وحا سومالي لان لغوها يستو ايلان هاي واقو عينا حدود كي انجريس كنو دي جيبانو سوق وصلنا انت كالنا وقفالنا دادك كالنا وقفالنا تيباد وطن حقيقة دون تاوي عادي دي كفوغان مايو دي كورا داران مايو لكن مدبان دي شاقي ايجي قرن با كأب كوناكسن انتان مقع رير عاد حكو دوني لهايدا إذوكو يا صومالي قلبيت بانو نهاي صومالي قلبيت بانو حكو دونينا صومالي محمد وردن باكولا صفن لكن مركز اوغادين يترهد أدر عيد كاليس كداي أنا كاهري إيجي أنا كاهري مركز قولي بوتلان iyo inta ku hareersan iyo qabaa'ilada aad ku abtirsanaysid baa wallahi ka haray markay inta qabiil wax ku raadinaysid qarannimo wax ku raad Soomaali galbeed wiilka jooga Gaarisa iyo wiilka Jabuuti jooga meesha la yiraahdo Muruxle obox xagga ka sixigtay Muruxle ayaa kula dagaalamay xabada kula riday karaas asayr iyo suqadara jooga xabada kula riday war dadkan horta Soomaaliyeed in kaarta ku dhacday maxay tahay war adigoo weel weyn heli kara oo Ilaahay ku barid maxaa qorofad yar horta u soo qaataan oo waxa weeye ugu bariya tagtaan adigoo weel weyn helaya war Ilaahay dad bariyay weel weyn baa lagu bariyaa meel waasacana wala la tagaa Ilaahay gacantiisu way weyn tahay wax weyn baa la weydiistaa eegi wixii ka horeeyay dadkan meelaha ka soo qeyn jireen deedaguma dhigi jiray laakiin niman weyn oo odayaal oo onelef ka tirsan markay oo degarku cadigay oo 70 jira oo Soomaali waxay hayd u soo joogay
inay halka la soo fariistaan ogaadeen iyo wax ku doonayna oo waliba ku hanjabaan cidna loogu joojin maayo waniyo malo waxadu tamar leeyay isaga isku taagi lahaa haddii reernimo wax tarayso Soomaali baa horumar ka gaari lahayd Puntland baa samada gali lahayd Somaliland baa samada gali lahayd galmudugtana akmar lahayd haddii qabiil wax tarayo qabiil wax lagu helay Soomaali oo israacada oo walaalowda oo gacmaha isqabsata oo jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya dib u soo noqoto mooyaane sharaf idinkuna yeelan maysaa guushiinu mar walbana waa idinku soo celcelinaa guushiinu waxay ku jirtaa oo nalafay Soomaaliya gacmaha isqabsata gobonnimadina waxay ku jirtaa Soomaaliya gacmaha isqabsata inta shacabka Puntland iyo shacabka Somaliland aad u xeerinaysan nimanka daalimiinta ee Muuse Maadar iyo Cabdi Faaruqna horumar gaari maysan waad leedihiin Puntland waa xun tahay oo Somaliland waa xun tahay shacabku ma xuma ee waxa haysta xaraan kuna xaraamiin oo Ilaahay ka furtay oo wada dijaal awar oo fircoona waa wada haysta oo xabashida ka amar qaato dijaal awar ba xaraan ku haysta gabigooda shacabka Soomaaliyeed waa xalaal min mashriq illa maghrib jigjiga illa gaarisa illa Djibouti shacabka Soomaaliyeed waa dixiin waa dad wanaagsan oo walaalnimada iyo Soomaalinimada ku dheertay eegi laakiin daalimiin baa haysto way afduuban marka waxaan ilaahay oo nalafay waanu idin jecel waanu taageersan laakiin billaahi calaykum aqligu noo shaqeeyo oo Soomaali galbeed wax ku doonto Soomaalnimo wax lagu waayay reernimo wax lagu helo dadkana ha caburina wariye dadka adeer khasbina nin guriga kula degan oo kula daaqaya oo geedkii ceelkii aad wadaagtaan baadlada dhulkan ogaadeen yaa liyaa yaa ka yeelayo oo ka aqli liita ilan aqli waynu shaqeeya maxaa yaa Soomaali isku diray Soomaali maxay ku kala dhimatay qabiil bay ku kala dhimatay Soomaali wallahi baan meesha yare maamulka yare odayaashu dhiseen barkii hore lagu talagalay dawladnimada lagu sugo ee marba daalinku imanayo haddii la dhihi ama jeerteeniya adeer waa lagu kala tagi lahaa Soomaalina qabiil baa kala yeedhi Muqdisho la wada joogay dawlad baa dhisnayd kacaan baa socday liin baa la kaadsi cirka la mariyay adduunkan ugu sareeynay maxaana kala daadiyay fiirsi kaar baa la marsaday qabiil ah niman kuraas doonaya oo iimaan la'aan hayso ayaa saa qabiil u marsaday dadkii kaasaana lagu kala tagay idinkuna kiibaad wadaan 27 sano in ummadda Soomaaliyeed qabiilka ka soo daashay waxay maanta Soomaaliya u dhismi laadahayna waa qabiilka marba reer yar baa oranaya hal qanciyo reer hebel waa lagu degdegay maya waa laga degdegay maya eegi idinkana intaas idinka baxaya ummadda Soomaaliyeed waxa la war dawladnimada hala taageero war qarannimada hala taageero war sharafteenu waxay ku jirtaa wallaahi waxay ku jirtaa sharafteenu gacmaha aynu isqabsano waad aragtaan maanta Muqdisho say u dhalaalayso caasimada Soomaaliya sida dad waxay ninkii meeli bugtaa isagay balbashaa dad baa diidan Muqdisho maanta inay bilaa qarax noqoto eegi xagaanu kala marayna waa kaaf iyo kala dheeri iyo kaan u dhigtay oo ma nin baa maanta wuxuu ka caroonayaa Muqdisho inay nabad noqoto dadkan xoolaha yeeshay caloosha waaweyn ee 10ka bakhaar iyo 10ka dabaq leh ee afarta dumarka qaba ee ka ab saboolka ahaan jiray aan waxba haysan xagee wax ka keenay adduunyo fil basar wal aakhira fil amal waxay u baahan tahay in la tartiibiyo la shiilo la baaro xagee ka keenay baraawe markab baa ka degay maalintii labaad la leeyahay waxa saaran dhisma saaran madaafiic culus oo furfuran iyo rasaas baa laga dajinay xagee lagu weerarayo hubka yaa lagu dilayaa qof Soomaaliya inay wax gaadho anagu ma ogolin inta nahay midnimo qaran dalkana qaar ba koreey dawladdu war kama hayso warda dalkan wadankan maanta joogo Yurub haddii wadada qof wax ku sameeyo booliska oo aan soo gaarin baa shacabku qabtay oo telefoon diraa xaafad kasta security beleed markaas boolisku yimaada eegi dalkan dawladan kaliya ma ilaalin kartee waa dal 27 sano bahla galeen ahaaye oo mas iyo abeeso iyo goodaado iyo dabaq saqaf iyo dhurwa iyo dhidar iyo libaax iyo harim cad iyo abguris iyo abeesooyin iyo masasbaa ka buuxa dawladdu markay sida faraha u geliso oo balbahalkan liyaado baldoosarka saa loo geliyo
wax badan oo bahala yar bahalka ka baxay baalaas weyn shacabku qabtaan eegi nabad iyo nolol baa la yiraahdaa dawladan waxay u soo jeedaa dalka iyo dadka ma aha in shacabka dawladda kaliya lagu shiday shacabka laftirkooda shacabka baraawo weyn markabka dabaal ugu tagaa oo ay soo ogaadaan gudihiisa waxa ku jira gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose la socday oo taagnaa meesha eegi وين شعب كودا باشا رير براوي ضد باشا يغاوي رير براوي فرينتنا كم مرة واحد مركب كاس وحو هايو يوحو سدوها للسوق دولتنا هالله شغال لو قسيو أنا قلنا هالقا صانو مرنين دلك النجا والله والله فرماتش دلك الملأ وحس على خير الملأ ودولة ما أنت تشتين نبض ينور الملأ النجا إسكال واللو ذاكنا كلية وحنا ديرين هو جانكو ينوهيان inkastoo gees iyo rag geedadeeyay hadaan garab kala la qaban guri oodi maayo war hadaan la isla qaban wuxuu yiri hadaan la rogrogin rag baan helin eegi waa inaan garabka isla qabanaa وين dawladda wixii xitaa dawladdu waa binaadam way dadka maamulayana waa binaadam khalad baa ka dhacaya waxba ka hoos baxaya waxba la isdhaafinaya meesha masas baa ku jira shacabku waa inay dhexda xidhaan eegi وإني أفرت كونا كي استاجا وهذا وقتينو غير تركيا غير تركيا منو كليدنا ما تركيا منو كليدنا تركيا ذلك هذا بدادي مدحوينه هو ديو عرض ولا بدأ عقود حكي ديو كين قلي بإنا ير وساب كيس يفرق قص وساب كإنا كاير كسوهاد هدان هين كإنا كايري أنا وهين ضاعدا ما دلك يسجعلين مين سوهاد لها أردوغان شعب مدود وصوبح لها من مدافع ده اللي يسود لها محبة اللي سكيح لها شعب كأقول دعاي ميليتريجا جريه هذي اللي دعاي يحرموه دي نقول فيض اللي يحبط إيجي إنك مركب محاينا هيستا إنك قادي من صودت منهن أو ضد إسلام منهن أو سومالي منهن أو قبتي ليغين منهن أو ضد كي أكاد شيء سيد عبد الله حسن يا الشيخ بشير يا إله بالك بين محمود حربي يا إسماعيل مري يا أحمد قري يا حاوتاكية دقحتور ميانا هين قبل نمدي يا شرفت مين دمات ورقبي واتشبتا قونيسا واليد قبتو ويتشبتا قبتو لكن قونيسا واليد ايجي شرفت يا كرامة يا ضنمد وحي كوشرتا قريقاقا إناد كسو بلودتا او تقشيكي كسو قاد دولة الصومالية محاي وحاي قوي دولة كبحة إذوكم حاقا بكرتان maxaad adigu qaban kartaa qof walba weyn isweydiiyo adigu maxaad qaban kartaa aan waxaan qaban karaa bulshada in halka ka wacyi geliyo waxaan qaban karaa dalkayga inta tageen aan tuuta qaato furinta ciidanka aan galo waxaan qaban karaa iska wax u qabsayna wax ku dhiso oo subax walba ka laho inta yeenka badan man qaban karaa qof walba weyn isweydiiya 10 shilin aad haysid maxaad qof walaalkaaga u tari kartaa maanta qof walaalkaaga maxaad u tari kartaa maanta oo u qaban kartaa dadka walaalaha Soomaaliyeed la qaxinayo guryahooda laga qaxiyay eegay ila leeyahay barakacayaasha maxaad tari kartaa war waa inaynu gacmaha isqabsanaa waa inaynu walaalowna waa in sharaftii iyo karaamadii iyo dadnimadeenna aynu soo celinaa eegay gaarsiiyay in xayawaankan qabyaaladu dulatiya bukaan socodka wax ka dhacay adduunyada war miyaad u haysaa buu yiri wax ka dhacay adduunyada war miyaad u haysaa eegay Soomaaliye gacmaha hal isqabsado oo hal walaaloobo oo umada Soomaaliyeed waa mid oo diinteenu waa mid oo dhaqankeenu waa mid oo sharafteenu waa mid iimaanka Allah idigu soo celiyo ulal amrigana waxaan leenahay horta ulal amriga ducadiisuna waa kacda habaarkiisuna wuu kacaa siyaad bara wuxuu yiri iimaankii baad beeshanay iimaanka Allah idinka qaad wuxuu kaloo yiri dal baan ka tagayaa ee dad ka tagi maayo labadiiba maanta waa la hayay waxaan leenahay marka ulal amriga iyo madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed war umadan u ducay jaala madaxweyne habaar horay qabaane habaar bay qabaanayoo shaashafka u taagayo isbarmuutada dibadda ku cabayo jaamacaduhu ay waxa weeye lacag ku qaadanayo iskuulaadkii bilaashiin oo dhaqaatiirtii iyo adduunku saas u yaacayo bay iimaan la'aan qaadeen u ducay oo waxa taada ilaahay iimaanka idinku soo celiyo oo ilaahay wanaagin iyo dalkiina haydo tuso bismillah
oo karaamadiina iyo sharaftiina Allah idin tuso oo isu naxariista ilaahay wuxuu yiri isu naxaan idin naxariiste war dhulka isku naxariista ana samada idin soo naxariisanay xanuun iyo qabyaalad iyo hada qofka bukaan socodka haddaad salaam calaykum laba kalmood asweydiisaan marka uu isdhiibay in qabyaaladu quruntahay baan ku sheegay difaac yar xitaa male qofka bukaan socodka kulama doodi karo runta marka uu sheegto leeyahay wallahi waa run bu qorray dadkeena xanuun baa laay dadkeena fakhri baa laay dadkeena gaaja laysay dadkeena xanuuna laay dadkeena sixir barar baa laay hooyooyinkii Soomaaliyeed iyo aabayaashii Soomaaliyeed Addis Ababa baa dhakhtar loola aadiyay Abdullahi Jafar Sulay arrimaha ganacsiga ka soo wada hadal arrimaha ganacsiga la ilaaha illa allah wa rasuul arrimaha ganacsiga ka soo iyo amniga Soomaaliland maxay iyo Muuse Maadir ya danaha labada dal iyo xuduudaha baanu khamkum iyo qamshaxda baanu soo wareysanayo dhaqaalaha iyo ganacsiga dhaxmariyo amniga nin allaale ninkii la doonayo Hargeysa laga baxaa maalin walba nin oo neelafa oo mujaahida oo dalka u shahiidaya baa laga baxaa Hargeysa oo Boosaaso laga baxaa oo Garowe laga baxaa oo Burco laga baxaa eegi aqligiinu Soomaali anagu daalimayno oo nasalmayno oo xiiqimayno oo wallahi saasaanu 9 ka u xiimayna oo inta naftu nagu jirto waa jihaadayna oo haday dagaal noqoto xitaa waa dagaalamayna sidii Soomaali leesugu farmaajo saacadu ka fariisto farmaajo xasan cali khayr saacada ka fariisatay farmaajo xasan cali khayr war sheekh Shariif baa yimi waa tagay Abdullahi Yusuf baa yimi Allahu naxariisto waa tagay Abdi Qaasim baa yimi waa tagay xasan sheekh baa yimi waa tagay farmaajo yimi wuuna tagaya xanuunka loo waayay wada bukaan socodka Umar Abdirashiid baa mucaarad ku ahay oo aanu diidanay ninkii badda iibsaday oo ku niri anaga niri kuma rabno qabyaalad Xasan Cali Khayrana waan taageersanay eegi Xasan Cali Khayrana qof waliba wuxuu galo iyo wuxuu gudaan anoo ku taageerin ninkii qof Soomaaliya wanaag u galo oo warxa Hindiya iyo meesha riyaado shishiris maxaabiistii ku jirtay Soomaaliyeed muxuu Xasan Cali u soo dayn waayay Xasan Sheekh muxuu Umar Abdirashiid u soo dayn waayay maxay u soo dawladda hore mucaarad baan ku hay sax mucaarad baan ku hay ana hadda idin hor taageero mucaarad baan ku ahaa muxuu noo qabtay Xasan Sheekh Umar Abdirashiid muxuu noo qabtay badda raggii iibsaday miyaan ahayn raggii jigjiga intii ka dageen lahaa jigjiga waa Itoobiya madaxweynihii ugu khasaaraha badnaa ee Soomaali soo maray Xasan Sheekh buu ninkii jigjiga intuu tagay yiri jigjiga Itoobiya ka mid tahay bal federalismka iyo wanaagga leedahay iyo sida Itoobiya u hormartay jigjiga ma Itoobiya leh taariikhda ugu xun ee Soomaali soo martay madaxweyne Soomaaliyeed oo ka dagay jigjiga yiri jigjiga waa Itoobiya Xasan Sheekh buu ummadda Soomaaliyeed lagu laayay meesha yiraahdo waar meeshii sheegnay ciidanka Soomaaliya lagu leen jiray gobolka Gada ka mid ah iyagoo meydkii iyo shacabkii meydkii sida u yaalin buu Kenya ka dago Nairobi ka dagayo kufaar la laayo Kenyaati oo cadow oo soo weeraray buu ururkucay oo u sujuuday markaasaan marka taageerano maxaan ku taageeraa Umar Abdirashiidkii badda iibsaday ee ummadda Soomaaliyeed baddeeda gatay ee haddana ummadda Soomaaliyeed dawladnimadeeda hor taagan miyaan taageeraa maxaan ku taageeraa mareernimaan ku taageeraa iyo qabyaalad iyo ilmaadeer baan nahay oo harti baan wadanahay baan ku taageeraa miya aniga taageeradayda cidna ugama hamranayo qofkii wanaagsan waan taageeraya ilma xayawaano kii xunna waa ka soo horjeesanay eegi sheeka yaro jilicsan iyo qabyaalad yaro niica iyo su'aasha damana qof dambe ay weydiin kara xitaa ma jiro qof dambe ay weydiin kara ma jiro caawaan idinka qarcinay Xasan Sheekh daalin buu ahaa ninkii jigjiga yiri Itoobiya ka mid tahay buu ahaa ninkii shacabka Soomaaliyeed oo la laayay Kenya intuu ka dagay kufaartu u sujuudayay buu ahaa Kenyaanka dadkayga laayay eegi Umar Abdirashiid daalin kala way Xasan Sheekh xaga ka sixiga oo ninkii badda Soomaaliya iibsaday gorgortanka galiyay badda Soomaaliya damiir baydan lahayn oo qalbiga idin wada taagan oo waad ilowsho dhowdihiin oo Soomaaliya
maalin walba nin baa intuu yimaado lugya gacaldi gooyay markaas maalintan buu soo idin soo qosla markaas aad u ooydan aniga ninkii abaal ii galayna waan ogay ninkii aniga ilu gooyayna waan ogay wuxuu yiri libaax nin garan iyo nin galadayba og ninkii aniga wanaag ii galayna waan ogay xasan cali khayr waran mursada ma yihide hawiyana ma yihide eegay xasan cali khayr Soomaaliyeed ku taageeraya darbiga qabyaaladana waan ka soo booday xitaa halka caawa waxaan u maranayaa kuwa xun oo aan isku naadinahay oo meelaha nicda ka soo guro de Puntland ka wadno reer wadaagno halka yaa Umar Cabdirashiid baad ku taagantahay xasan cali khayrna waa taageersantay xasan cali khayr Soomaaliyeed ku taageerano wanaag uu qabtay baan ku taageeray maxaabiista shiisha isku soo daayay baan ku taageeray kuwa Hindiya uu soo daayay baan ku taageeray kuwa Ethiopia iyagoo 20 jir ah galay 50 jirka ka soo saaray baan ku taageeray xasan cali khayr Soomaaliyeed baan ku taageeray maxaan ku taageeray Umar Cabdirashiid maxaan ku taageeray ma aakhiru awoorkiga xigay yani war qofku yiri sinaan mayn adna buri sareyntiis ninkan tayda qaabilin ninkan tayda qiimeyntiisana ma qaabilo adeer ninkan aniga tayda qiimeyn wallahi tiisana ma qaabilo eegi ninkasta wuxuu geystay un baa loo gudayaa sax qabyaalad Umar Cabdirashiid baa kaga aniga Cabdirashiid baa Umar Cabdirashiid waa tuug anaga idin la hadar dib dambana ima weydii karta wallahi dad mar dambe ila timaadaan nicda kuwina xunxune aan meesha ka wada nimi wallahi blog baan idin saaray xanuunka loo waayay ee qabyaaladu dulooti anigu adeer cidna uma halkaas aan u diin marnayna waxa Allah waxaan u dahay xasan cali khayr ilaahay baa u soo diray dalkan de ma anagu samada laga naadiyay magaciis wanaaga iyo sharka qof walbana saacad qadarka alla korbay ka qoran wanaaga ma anaga la doonan ilaahay baa la doontay hadaayadana ilaahay baa iska leh farmaajo kuwina xasan sheekh qusuxsanow idinka Axmed Ishaga adeer ninac hayro soo doonay sheeka jirsan nin waxa dhageysta meehiye qabyaaladdan iyo reernimada waan ka soo booday hadaad ila timaadaan ashaadan loo xidin ku dhigay anigu meehi wartay adeer waynu isbaray waynu saqoon wuxuu yaallo yaa rag u kala waran wax isma yeelaan adeer anu sheeka yar oo jirsan iyo niic yar iyo taasaan ku qadayn lahaa de adeer aan ka yimi boosaas deeqaan ka yimi oo waxa weeyeen iyo Puntland oo aan u mushxarad lahaa u shumbira waaqleyn lahaa haday u soconayso haday deeqayso Puntland baan joogi lahaa tii Cabdi Xaaji baan halka ka waran lahaa sida dadka qaarkii kan xunay xanuunsanay magaciisa balaayada magaciisa ma rabay ee meelaha ka soo ooye iyo dadkan u shumbira waaqleeya Cabdi Faaruq Puntland bay de aan u shumbira waaqleyn lahaa laakiin anigu Soomaalinimo wax ka sokeeya oo aan haba yaraatay laga hadli karaa ma jirto teeda kale deedu kuba taageera ninkii Umar Cabdirashiid loo ooyay iyo ninkii Xasan Sheekh loo ooyayo de adeer soo taageer adigu ninkii Cabdiwali gaas loo ooyayo de soo taageer ma ku haystaan ninkii Muuse Maadar u ooyayo soo taageertay laakiin aniga sheeka jirsan iyo bukaan socodnimo iyo in adeerow ka deg waa naga degayntii munadaayo uu naga tagay munadaayo maxaa dalka ku soo wareejiyay maxaa xasan cali khayriye farmaashada waan fashilmay ee ila fashilan way marka si loo eego xasan sheekh baa la qaatay oo soo dib buu uga fadhiistayba oo soo meelaha wax mucaarada iyo wax dibidaabayeen lama arko laakiin Umar Cabdirashiid wuu soo dhigtayba nigis buu ku wareegaya magaalada wuu ceeb buu soo tafaxay imaaraad lacag ka keen niman xanuunsan oo meelaha kale joogo ka yaacay ceelbuur ka yaacay oo xanuun oo bukaan socodon kan mahad salaadiyo ay ku jiraan lacag si shirsakiin bisbaas marba mid kabay Axmed Madoobe iyo Cabdi Faaruq sugu yeer niic iyo riwaayad buu nagala dhameelay waradikuna qabyaaladiina taageera oo bukaan socodkiina noqda oo dhinacina deegaanka ka taageeraan niic xaylay man anigu Soomaalinimo wax ka sokeeyo ka hadlayaan ma jirto imaba deeqda wax kale yaa nooga fiicano nooga baalkaysano hadii reernimo wax tara siiyo qabyaal Puntland maxaa ku dhex jira 27 sano marka taagnino Puntland maamulka Puntland la maxaanu soo kororsanno haysana arurtii reer Puntland waa bilaa iskuul hal iskuul oo bilaa shamale dhakhtar caafimaad male xanuunka loo waayay Soomaalinimadu lacag ma hadde anu xamar waliye ma arag xanuun iyo laakiin dawladna waliye ma arag aan dhahay haddana dawladnimo aan rabaa iyo qarannimo
maxaa waa bilaa iskuul niman gar waaweyn oo daalimiinoo sacuudiga iyo imaaraadka nooga yimiyo qarxiyada iyo baa iyo hoog iyo xasuuqa ummadda Soomaaliyeed u keenay oo 22 manhaj wato kala kaana baa dadkii haysta caafimaad darro meel walba nin Pakistan iyo Hindi xuno dadka maqaska ku ilaa wasaad joogta qofkii xanuunsan Addis Ababa loo qaadaya maxaanu faa'iido haysanaa Puntland way dhaqaaqday way duushay maxaanu ku haysanaa Puntland 120 project baa dad aqoon-yahana keenay oo fahmo u horeyso fahmo Saciid waa gabar Soomaaliyeed oo European Commission ka shaqeysa oo deegaanka Puntland ka soo jeeda laakiin reer hay'ad Jawhar maxaa reer bay soo taagay maxaa noo haysaa bali qabyaalad baa meel walba qabyaalad baa taal shacabkuna waa isku wada cudur shacabkana dawladnimo rabaan shacabkana wanaag bay rabaan caafimaad bay rabaan iskuul bilaash rabaan wallahi hooyada Hargeysa joogta iyo hooyada Boosaaso joogta iyo hooyada Muqdisho joogta waa isku duruuf been bay la isugu sheekaya nabad baan war nabadda shacabka keenay waa run shacabku inay kala fiican yihiin oo qaarna soo qabanaya ninkii miinada wada oo maalin waxaan arkay Muqdisho degmo kamid ah shacabka soo qabtay nin raba inuu qaar habeenkii dadka baadho dadka la wax qarxiya wallahi degmada halka ay ugu soo qora hal wadaag inay hayd baan u malaynayaa degmo kamid ah Muqdisho waa la soo qabtay shacabkaana soo qabtay eegi shacabka soo qabtay marka waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed war walaalnimada iyo gobonnimada iyo sharafta waxa ku jirta gacmaha is qabsano waligiina hadaalina dawladnimada hakada waxaynu u ordaynaa maanta ee midnimo qaran u ordaysaa waa ubadkayga anaga bila mustaqbal noqonay ubadkaygana bila mustaqbal noqdaan baan u diidana gabar dambe Soomaaliya inay ooydaan u diidana raha xanuun daahir cala sow waraniga way taqaana wallahi aqalkaagan kugu imanayay billaah naag iyo xumi aniga halka nixay iga soo qorin in ilaahay yaab ku keeni oo wallahi baan quri daahir shaydaano aniga niyow sheekay yaro jilicsan iyo naac iyo wallahi ma qoro dibadda isku soo baxayna waad taqaana magaalada yare qaar maxay bareeda maalin walba bareeda taga wariyax ma ku sheegaadeer wallahi ina istaashoonka ku istaagay bareeda oo ilaahay yaab ku keeni anu sheekay yaro jilicsan iyo ma gabadh baad haystaan gabdhaha timaha jiidan jirtayo iyo ciyaalkii inankii yaraay xidig nuurshay Muqdisho كيسة فنان كاي ما هذه استانية هذا راني وحبة دول كي جميع يالين والله هذا الناعي لسدونتي داير شيطانه هذا والله الناعي لسدونتي إنا مبريضك قوي من با والله سلادي بصوا على علي دون تاي ما تشوك والله سلادي بصوا على علي سداهرو وبالله وطلع وضد صوت الرساية ما تشوك تهوي كلمة دبو عاي أنا جاي شغل إنا حيوانه أنا وحن إيه مركب مادة الصومالية ورانا الرفاقي لا شو أنا يضو سكرين ناي أنا ما هي فنانين تناد حوق جايو ملاها سودك هذا بريدان كوي من طناعي صدق والله أنا كوي منو إلهي كوكيني شيء ده وسوسو شعب الصومالي ده حنلي والصومالي والقرية هاد نقوي قرية هاد نقوي لبعسي قرية هاد نقوي si kasta waa la isu eriyadayo reer dawlad noqon waa federalism kuna waa kala qayminta shacabka Soomaaliyeed kala qayminta shacab waran uma bootay wallahi uu yaqaan aniga niyow anu sheekay yaro jilicsan iyo waxaan ugu qoro ninkii naac ila yimaado noocaas oo kala guryahan ugu dhacaa wallahi eegi war toban wuxuu leeyahay Facebook buu leeyahay waan ogahay waxaan leeyahay wadda Soomaaliyeed qabyaalad waxba tari weey قبيلة وحبة ترويدي فدراليسم كانوا كلا جوين تومات الصوماليين شعب الصوماليين اللي كلا جويو أو اللي سكدروا ويا فدراليسم وأنا واحد حبشيده يقول بديسا فدراليسم مدنا ويدين شيء يا شعب الصوماليين أنا ضد ظلم هالنصارينا دجان كبوت لان شعب ككنول مرتش على فدراليسم من الدونيان نمن أول كوك عشان يدونيان يجروا ودت كهالك كوك قبطان أيها واحد شعل أو سياسيين تا شعب كجروا ورا هالي كماها كوا بوصصنا رالي كماها شعب كديان كبوتلان كنا ولا فدراليسم مرة odaga farole iyo Cabdifaaruq iyo nimanka siyaasiyiinta iyo Saciid Maxamed Raage iyo inta tuugada saa wadata
أنا وما دونين هنقول شابضينين بطلان بقى فدرال كواتا بطلان بقى مو وضعنا أنه من الدونين وحن الدونين مقدشية بوصاصين سفرنت سيدي يطبق قبل الصومالية فدراليسم كحلاش أنا وقبل والببتس كيسيو دقاليه سي خلق كيسيو خمس حديثيو رميس إنه قوني سوا يستوي وحي دولة طريقتان ترتو وحي دولة كقاعد سيد الصومالية هانتي إيجي تاسانو نقدرين لكن فدراليسم غير ليسو راعيو يا هويها قبل الدحى دارات كبري دارات ككونفور ساق وقوي دارات كوقوي وحنا وخالك مني كلنا وقبيالات رحوين تا كونفور وحاس وقبيالات وغير بالسورة عليا ضدك من الشقينسو إيجي قومني ما ذو كعماس قبصنو خير بركة هذه السنة وإن سلام يا دمان شعبك الصوماليين إلهي دنبيجني دنبيج واردكن هدافو وحي عن أصيبي إلهي باكم هذله وحي عن خلدنا النفط دي شيطان وي خير بركة هذه السنة صومالي لماذا دولتنا هلا تاجر وشعب كل جماعة يسقبصوا وريال متسجارة والله ضيع عاصمة دونو العلي إنه حيوان ودم بكوريجي ورسني النبادينو صار قرن واقع سلامي لما نوركم من ما قرناك كسلامية أحمد بوس ومدحة مريكنكا قدوميها جودة مريكنكا أحمد بوس يانجي بوس صار من مقرن كندا صار قرن كندا صفية لا بركب بيلي نلك نوركا شرملكا لمان صاحبك عبد السلام جنتلمان متان كيجي عاوة هولير بكون مغي سفر بكون شراء وسو دعائي سجنا إن شاء الله وبإذن الله الكريم نوتقو مقالة السي وسعودي دمان شعبك الصوماليات وحمد الله ورقوا من لماذا هوارتو ولا لماذا هوارتو شرفته هوارتو قوش ودوده وإن يرفع بينوها هاري كعمها الله يسقبصد قول يقول ونما ذيك التقيا أقاسمها جودة من دمقرن حكايا جودة من دمقرن عبد الوهاب شيل بانك السلامية إبراهيم بانك السلامية وحنك السلامية محمد صومالي دمان من دمقرن ودمانك السلامية خير يبارك هندير التشينية ورسني النبادينو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.